waxaa maanta gelinkii dambe lagu dhigay mudaaharaad aad u weyn oo ay ka qayb galeen dad fara badan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo Yuraba. dadkaasi waxay mudaaharaadkaasi ku buujinayeen sida weyn ee ay uga soo horjeedaan colaadaha ka jira meelo badan oo dunida ah oo waxaanay si gaar ah carabka ugu adkeynayeen oo ay diidmo weyn ka muujinayeen dagaalada ka taagan dalalka Ciraaq, Afghanistan, Falastiin iyo Soomaaliya. haddaba Ridwaan Xaaji Cabdi Weli oo ah wariye madax bannaan oo London degan ayaa halkaasi tagay oo soo eegay sida uu u dhacay mudaaharaadkaasi oo ka dhacay wadooyin badan oo London ku yaala oo ay ku jirto wadada tagta xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalkan Britain. xasan barise oo khadka telefoonka ku wareysay ayaa weydiiyey Ridwaan cidda soo qaban qaabisay mudaaharaadkaasi iyo cidda ka qayb gashayba. waxaanu jawaabtiisa ku bilaabayaa Ridwaan erayo ay ku dhawaaqayaan dadkaasi qaar ka mid ah oo Soomaaliya. حسنا ودبت بحن waxaa soo qaban qaadiyay Stop the War Coalition kooxda la yiraahdo oo iyagu isugu jira dadyow kala duwan iyo ururo kala duwan aysiga macnaha joojinta colaadaha hay maaragtay fadhigiisu yahay magaalada London marka waxaa ka soo qayb galay dadyow kala duwan oo dhammaan ka soo jeeda goobaha dagaalada ugu baahan ay ka socdaan sida Ciraaq oo kale, Afghanistan, Soomaaliya, Falastiin iyo waliba dad iyagana ka soo horjeeda in duulaan lagu qaado dalkaasi Iran. inta badanna dadka maanta banaanbaxan isugu yimid ama dibadbaxan waxay yihiin dadka dalkan u dhashay. markaasi inteebay la eegyihiin aad isleedahay qiyaastii adigu hadda inta ka hor muuqataa weli buuqii waan maqlayaa. xasana runtii markii aan maanta booliiska arrintaasi weydiiyey waxay ii sheegeen in dadkani ay kor u dhaafayaan 10,000 isla markaana ay ka soo horjeedaan dagaaladaasi. runtiina waxaad moodaa xataa in dadka Soomaalida ay qayb ka yihiin isbahaysigan cusub iyo sida maaragtay banaanbaxu u dhacayo. waxaanan gaar ahaan marka ay dadkii Soomaalida qaar ka mid ah la kulmay sida Zakariya Xaaji Maxamuud oo ah ku-xigeenka guddiga fulinta ee isbahaysiga Asmaro lagu soo dhisay uu hadaladiisii ka mid ahaa. annagu halkan waxaan u nimid in ummadda Soomaaliyeed caalamka aan u sheegno in dhibaato lagu hayo. Ethiopia dalka iyaga ay qabsatay, America ay bombardaareynayso dalka iyagii. waxaan u sheegnay dadka Ingiriiska iyo dadka Carabta iyo dadka muslimiinta halka yimid iyo Kristaan iyo Yuhuud cid walba timid in aan u baahanahay Soomaaliya in gacan la siiyo, Ethiopia laga saaro, ciidamada Ethiopia laga saaro, Malaysia in maxkamad la keeno, Mareykanka in laga saaro dalka iyaga. marka waxaad moodaa xasan oo runtii in dhammaanaha kala duwan ee dadka dalkan ay sitaan xataa boorar ay ku muujinayaan waxyaabaha dhacay qaarkood ay ku leeyihiin hal joojiyo dagaalka Ciraaq oo Mareykanku ka wado oo ilaa 3 trilyan ay ku baxdeen muddadii 5 sano ahayd ee dagaaladaasi ay socdeen iyadoo ilaa iyo haddana wax natiijo aan laga gaarin dagaaladaasi ay isbahaysiga Mareykanka iyo dalkan Britain ay ku qaadeen Ciraaq. waayahay Ridwaanow waxaan maqlayaa inaad la hadashay Zakariya Xaaji Maxamuud Cabdi oo aad adigii sheegay in muxuu ahay dadka Soomaaliyeed xataa ay qayb ka yihiin isbahaysigan cusub ee muxuu ahay diidmada colaadaha meelaha adduunka ka jira. marka dadkani intee dhul la eg ayay soo mareen ilaa iyo 10,000 oo qof haddii ay kugu sheegeen booliiska mase jirtaa ilaa iyo hadda cid mas-uuliyiin oo la hadashay ama iyaga ay la hadleen oo ay u cabanayaan oo cabashadooda ay u gudbinayaan. xasanow markii maanta uu bilaabanayay dibadbaxan waxaa dadku ay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee Trafalgar Square waxaana ay socod ku soo mareen ilaa iyo xarunta ra'iisul wasaaraha dalkan Britain xafiiskiisa. hadda oo aan kula hadlayo weli socod ayay ku jiraan waxaana ay marayaan baarlamaanka dalkan Britain hortiisa. waxaana socodkan ay ku mari doonaan wadooyinka waaweyn ee bartamaha magaalada London ilaa iyo saacadaha soo socda ayaana banaanbaxan uu socon doonaa. ragga ugu caansan marka aad eegto dalkan Britain mudanayaashiisa baarlamaanka ka tirsan halkaasi maanta ka hadlay waxaa ka mid ah George Galloway oo sheegay in wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee dalkan ay si weyn ugu xadgudubtay dadyowga ku nool dalalka Ciraaq iyo Afghanistan oo uu sheegay inay malaayiin qof ka qaxeen dagaaladaasi isla markaana hanti aad u xoogan lagu burburiyay. waxaa kaloo isna goobta ka hadlay Jeremy Corbyn oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo dad ururada u dhaqdhaqaaqa ka hortagga colaadaha dhammaantood xubno ka ah
oo aad moodid inay runtii si weyn banaanbaxan iyo khudbooyinkii ay soo diyaarsadeenba ay si gaara ugu taabanayeen dalalkaasi waxaana ay leeyihiin ma aha in dhiig loo daadiyo shidaal ma aha in dadka ciraaq la baabi'iyo ma ahan in iiraan lagu duulo ma ahan in maraykanku ciidamo ethoobiyaana soomaaliya geeyo iyo runtii orahyo kale oo boorarka inta badan dadku ay ku xusayaan waayahay ridwaanow gaar ahaan arrinta soomaaliya wax mas-uuliyiinta ka mid ah si gaara usoo hadal qaaday ma jirtaa waan ogahay adduunka meelaha colaadaha ka jiraan sida ciraaq iyo kaleeto iyo afghanistan iyo mar walba arrinka soomaaliya waxaad moodaa inay hareeyaan oo ay ka xoog badnaadaan ma jirtay marka laga soo tago soomaalida hadda meesha aad ku aragtay kasokow wax mas-uuliyiinta dalkan britain ama baarlamaan ha ku jiraan ama golada wasiirada ha ahaadaan arrinka soomaaliya si gaara usoo hadal qaaday xasan barisow george galawi iyo haweeney kale oo xisbiga respect ee dalkan ka tirsan ayaa labaduba markii ay ka hadlayeen colaadaha ka taagan bariga dhexe iyo dunida islaamka waxa ay ka hadleen soomaaliya oo ay sheegeen in dad fara badan oo soomaali ah maraykanku uu bambaanooyin la dhacay in ciidamo ethoobiyaana ay dhibaato xoogan dalka ka hayaan iyagoo weliba taageero ka helaya maraykanka laakiin inta badan markaad eegto waxaa xooga aad moodaa in ay uga hadlayaan arrinta ciraaq oo 5 sannadood ay kasoo wareegtay oo maaragtay ilaa 4,000 oo ciidamo maraykana iyo kuwa ingiriisa ay ku dhinteen lacag 3 trilyan ah ay maaragtay ku burburiyeen dalkaas ilaa iyo haddana wax natiijo aanay jirin marka inta badan markaad eegto boorarka runtii waxaad moodaa in ciraaq iyo iiraan iyo Palestine iyo ay aad dadku uga hadlayaan maadaama hadda aad moodo inay dhacdooyinkaas ay yihiin kuwa ku badan warbaahinta caalamka ee dadyowga ee dalkan ku nool ay si weyn ula socdaan afarleedii galabta ayaa iskoreemaayo waxay ka dhaceen fariisimo ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin gudaha iyo daaqaha magaalada Muqdisho iskoreemaayada oo daqiiqado kala dambeeya ayaa bilowday kadib markii kooxaha kacdoon weeraro ku ekeeyeen saldhigga warshadii hore baastada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin iyo deegaanka ceel cirifti oo ku yaala beledka waqooyi ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka wadada ka timaada magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iskoreemaayada oo muddo nus saaca socday ayaan loogeen khasaaraha ay u geysteen dhinacyada dagaalamayaasha ah dad goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya inay arkeen ilaa 4 qof oo ku dhaawacmay weeraradaasi iyo rasaasta halkaasi ka dhacaysay dagaalada ayaa sidoo kale waxaa saameyn ay ku yeesheen dhaqdhaqaaqa wadada isku xirta office control Balcad iyo sidoo kale isgoyska Sanca ee magaalada Muqdisho taasoo ah wadada kaliya ay isticmaalaan gaadiidka aadaya degmooyinka Hurwaa iyo Kaaraan maadaama ay xiran tahay wadadii hore ee wadashadaha oo dagaalada inta badan ay saameeyeen muddooyinkii u dambeeyey dhawaqa rasaasta ayaa galabta laga maqlayay qaybo badan oo kamid ah magaalada waxaana mararka qaar holac laga arkayay aagaarka warshada baastada iyadoo madaafiic iyo sidoo kale qoryaha shabeellada halkaasi ay ka dhacayeen ma jirto cid ka tirsan dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo saraakiisha Itoobiya oo ka hadlay weerarkii galabta halkaasi ka dhacay iyadoo sidoo kale aana jirin cid sheegatay dagaalkii maanta maxamed maxamuud doore BBC Muqdisho midi ku dhiigle murug ku dhiigle midi ku dhiigle miji ku dhiigle marya ku dhiigle iyo moral ku dhiigle inay wada joogaan baan u malaynaya afartaa maamuus ilaah loogu mahadshoo mugdi soo dhex maray ku xid maantana go-aankii iyo madashii iyo xogteedii miiska uga dulgeeraan ma dad baa ma geedaa ma noolaa ma dhagax baa waxa iga hor muuqdaa ma rag baa ma dumar baa ma mijaa ma madax baa ma wax magac qabiil iyo matalaya ururaa weji muruga qariso ma shaqooyinkii dhacay ka madluunsan ma arkee maskaxdii iyo aqoontii miyay soo hilmaameen ma ogayaal war ma ogaa wax ma oga miyaa weli laxaw soo mirkacay iyo dareenkooda maqana maqalka iyo araggii maskaxaa u tabin jiray meerisyada dhacdada iyo unugyadii miyaa maqan ma hurdaan ma tooseen mise maalmihii tegay wax abuuran ma ahayn meerkaa ma guurtaa maxaa laga garnaqayaa indheergered ma jooga mise waaye araggii masruufkii carruurtiiyo dantiibuu ku maqan yahay halgankii iyo midnimadii iyo raggii calanka soo muday aan barooranay maye mataanaynta qarankii haddii magacii laga lumay maxay noloshu noo tahay kollay mawdku waa gare nafta ma isku aasnaa haddaan weynay maan iyo aqli noo maqoorada ma inaan gobnahay baan martidii shisheeyaha masawiran idhahnaa nin waliba muraad lehe inuu qoys miciin bido majarihii xorriyadduna ka habaaba marinkii maangaabni baa lehe marna ma istidhaahdeen hanta labada kii mudan waagii mudnaanta
maanta wasiir magac ku faanaa baabuur madow iyo muraayadaha xiran jiray meelaha nacfigana loo kala hormari jiray maareeyana la noqon jiray gudbe maalmahoodii waxaa timid marxalad adag oo maamul sare iyo ninka madaxa u ciil qaba mas-uuliyad u qaadiyo kow dhaar la mariyaa tahay miiskii soo gado musuqana dil baa tahay mushaar ma lihid shaqaduna maqrib iyo ilaa subax ilaa qaranka meydkaa lagu hubiyo meel wacan wax jiraa muraayada halkaasay maraysa afartaa micleeye waxa meesha yimid oo muuqayga mooye horta may taqaanin maya saan isleeyahay nin ammaantii meershaa riis maashay weeyaan mahmaha fog baa tiri mid kalaa ka daba tiri haddii ay ku moosaan kartaa la isku muujaa taasaa macquul eg maantana fagaaraha magacyaa la baxaya adigala ma suugteen waxaan ahay nin maahira mufti caalimaan ahay waxaan ahay makaabada midka ugu adag iyo madaxweyne aan dhicin oon magac qabiil sidan weeshada midnimadana jira mawdka dabadina waxaan ahay maeexdaha runta marada ku astura manqaslaba aflaan ahay madfac buur dushaan ahay mooyiya kal baan ahay masagada aan lagu tubin ubax iyo man baan ahay milic kululna waan ahay miftaaxii karaamada midigtaan ku haystaa ma soo xadin ma soo dhicin meel cidlaana kama helin maal iyo muruq iyo lixaad iyo maalna kumaan soo gadan waa deeqda mawlaheenna waa ku maadshaa ismadhaamayaashiiyo kuwa iga hormuuqdow laba mida mid soo gala inaad magaca qolada iyo matalaada ururada waa munaasibkooda ee ku xirtaan musqulaho tala lagu macaasho qaranka iyo midnimada iyo mataanaysa calanko makasta iyo shacabkii ku burburay masiibada wixii kala maqnaaya halaagii ka magan galay inay nabad macaan oo kusoo celisay manankii iyo helaan maamul wacan oo murugadii dareenkiiyo ka masaxa colaada oo waxyeeladii ka mayrtiyo kuula mahadsho keentaan ko iyo inaan mareegaha miimka iyo fallaadha ah idiin geliya madaxoo asma iyo mariid iyo sunudiin mareegood malmal iyo dhunkaal iyo murwaabay dilaacdaan oon magaca eebeen mukadiya awoodda leh inta miimku uga jiro ku dulbuusanaabo 46 mooro ismudaadku ka hormaro isu soo miguursoo midka xiga bilaabo ku khatimo almaanicu الرحمن الرحيم الملك السلام المؤمن المهيمن المتكبر المصور العليم المعز المذل السميع الحكم الحليم العظيم المخرج الكريم المجيب الحليم المجيد المتين الحميد الحسين المبدع المعد المحيي المميت القيوم الماجد السند المقتدر المقدم المؤخر المتعالى المتقيم مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصود الجامع المغني المانع وخاتم المانع المركان النقطان مسكبرها سيدي كوان مالك عرضه تشسر المقال جو لغرتو اي كم روحديو kuwa marada tuuro muraayadaha laabtiyo maskaxdooda qarxaaniyo mirta dhexe habeenkii kuwan micida caarkii xaas kowski mariyo xaamiim wa alif laamiim maguurtada sirtooda macno weeye dhex geliyo uus iyo laf iyo midmida aan dib loo arag oo tabar magaalada bidnillaahi mawlaa munakiir quburaha xisaabtooda ku martiya labada mid soo gala